dadku waa la garaacaya who's hawi and who's darad and who's isa waa hantis waa ku raacsan maanta waxa isu keensaday maanta naga saartay qadiir waxa isu keenay weeye wax kale wallahi qof walba wuxuu ku leeyahay wadankayga dhibka ka socda guryaha laga soo guraya gurihii ka gaari cusub hadda yimid dad hor loo keenaya waa bas buuxa bas baa hadda la keenay hor leh هاي مركا تاجي عشاء شدة تاجي سوالي واحد سكان توحنا هاي maqalka iyo muuqaalka idiin soo gaaraya waa Soomaalidii oo laga raafayo wadanka Zambia dhowr sano ka hor ayaa waxa sidaan oo kala Soomaalida laga raafay la isuguna keenay garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo Soomaalidii dib loo wada raafay oo dib loogu celiyay dalkoodii 30 sano ka hor intaanu dhicin dawladii dhexe Soomaalidu waxay ahayd dawladda ugu cududda military iyo dhaqaalaha badan geeska Afrika lagana haybeysto ha yeeshee markii qabiil iyo qoloqolo dawladoodii u burburiyay iyana isu dagaaleen ayna u kala xadeen dunida daafaheeda mid walba meeshuu magangeliye ka heli karo ayaa waxay daciif u noqdeen in qolo walba damaaciso dulmiso xuquuqdoodana ku tumato Soomaalida oo berigii hore laga haybansan jiray ayaa haatan waxay qolo walba u aragtaa daciif maskiin sidii doona laga yeeli karo oo ay ugu sii darnaatay dawladaha deriska Ethiopia Kenya, Tanzania, Mozambique, Angola, Zambia, South Africa ayagoo qaarkood waliba lagu gubo hoygooda iyo meheradahooda ay wax ku iibsadaan Soomaalidii oo iyada isdulmisay ayaa haatan nasiib darro waxay tahay waxay guranayaan mirihii 30 sano ka hor ay beerteen bal waa kan muuqaalkii ila daawad maanta waxa weeyaan dadka dhan baa halkan soo keenay caadi ahaan ya dadku waa la garaacaya dadka dhan waa dalkii ninkii ka tagay weelkiiska dheeraada ya ciidii salaada lagu tukanaya halka kana ya dadkii waa ashaas ugu yeeray marka ilaahay dadka samata dadka dhan halkan soo keenay أيوة. كويس أبكي. أحاول أطلع who's hawi and who's darad and who's isa waa hantis waa ku raacsan maanta waxa isu keensaday maanta naga saartay qadiir waxa isu keenay weeye wax kale wallahi qof walba wuxuu ku leeyahay wadankayga dhibka marka waasta problem halkaas dadka waxa halka dhooban waa dadkii halkaas taageeray dhibaatadaas taagay waxa weeyaan halkaas duubaya dadkii wada taagan yihiin halkaas gabdhihii wada fadhiyaan waxaan caadi ahay baa ka socda guryaha laga soo guraya gurihii ka gaari cusub hadda yimid dad hor loo keenaya waa bas buuxa bas baa hadda la keenay hor leh marka waa taagan عشاء شدة تاجن سوالي واحد سكان توحنا هاي وما دعين يا إله نقص ما تبي مركا إله نقبل حين كلا هوش تن هوش جاك به عشان بس أحس سوالي هالكاد هون يكون خير